madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay ra'iisul wasaaraha kadib muddo ku dhow 2 bilood oo dowladda federaalka ku shaqeynaysay xukuumad ku meel gaar ah. madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka u magacaabay Maxamed Xuseen Roble isagoo ku soo xushay aqoon waayo aragnimo iyo karti uu u leeyahay inuu sii ambaqaado dadaalka dowlad dhisidda iyo horumarka qorsheynta qaranka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray ra'iisul wasaaraha inuu si degdeg ah ku soo dhiso xukuumad tayo leh dadka u horseeda inay ku dhaqan geliso doorasho dadaal muuqda gelisa sidii loo xaqiijin lahaa guulaha laga gaaray amniga dib u dhisida ciidamada qalabka sida iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale baahinta adeegyada aasaasiga kamid dhalinta dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo musuqmaasuqa. magacaabistan ayaa ku soo beegmaysa saacado kadib markii Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii arrimaha doorashooyinka iyagoo loo malaynayo magacaabistan qayb ay ka ahayd heshiiskii Muqdisho lagu gaaray. ra'iisul wasaaraha ayaa lagu magacaabay waqti kala guurka siyaasadeed uu dalku isku diyaarinayo doorashooyin.